بسم الله وما تنتهي فلسطين أي بهذا سيوه وإما أنيا موقف كان قبله لهذا قضاء الشيكتي وحنكو حسني استدمنتي ما أنت عن صوت صارلي وقعدة مذكرتك إيو تدري توجه سبتمبر ذكرتك ما قبله أو سان شيء كاسو قاعد هاي تدري توجه سبتمبر ما يشيز للجليس أو لا شرعية أو لا بيكره ويشيز ككلية الوشيجي اللي سكوا فصيل هاي وهي سيد تبغى نريه هاي وارمتها عن شكلي إن الغصة اللي قلنا قضاء دلتنا الدور شكو قالوا لوغانا بحا اسم رواقة iyo ismaandhaafka siyaasadeed dalka jira midda ka soo wareegtay markii kulankii ka socda xalano uu burburay baarlamankuna uu muddo kororsiga ku dhawaaqay maamulka galmudug iyo hirshabeelle dawladdaas ku dhaweydeen maxay idinkugu qaadatay muddadaasi in aad mowqifkiina aad cadeyn weysaan oo ilaa xilligan uu soo gaaray markii hore Falastiin anigu ereyga burbur ma isticmaalo ما شركوا واستاجي وانا لو سي سعون كري وانا لفكان كري لها مو ماشي مركز وكتشيو عقبات ان العقبات الحلية ووحش عادية وظهر الله انا مرة وانا كسر عبحة تم وقتي على الشذا انا موقف قيادة يا رسول هذا وحياة مروربا inaan isku jiijino isku soo dhaweeyno muddo dheerna waa ka soo qadaynay waana hawshii ay ku timid ama ay ku dhalatay 17 September marka waxaan wadnay dadaal muddo dheerna ma ahayn baarlamaanku intuunan samayn muddo kordhintaana mowqifkanaga haddii aad la socotay waa cadayna waa sheegnay waana aanay muddo kordhin jiri karin dalkana uusan qaadi karin waa sheegnay muddadii ka dambaysan dadaalkaasaan wadnay dadaalkii aan wadnay ama hawshii aan intaa wadnay waxaa ka mid ah statementkii aan soo saarnay galabta soo saarnay marka taa ma aanan daahine si waqti caadiga ay ahayd baan aaminsanahay wixii kaloo dhacay ama dhibana waa aad baan uga xumaa maxaad is leedahay halkan waa laga aadayaa halkee halkan laga aadayaa halkan waxaa laga aadayaa sidaan sheegnay waa heshiis baa la gaaray heshiiskaas ayaa oo kaliya halkan laga aadi karaa sabab wax kale looga fakaro ama si kale loo yiraahdo xagee la aadayaana ma muuqato ama ma jiri karto marka halkan meesha laga aadayaa waa doorasho lagu galo heshiiskii 17 September leeyahay jaa kale oo furan oo doorasho lagu galaahay ma sabab keentaana ma jirto jid kale oo hadda ay sax tahay la aadana ma jiro mudan madaxweyne waxaa jirta in maalmahan dadaalo nabadeed aad ka wada magaalada muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyay ay qulqulatooyin iyo dagaalo ka socdeen sidee u aragtaa dagaalkaasi maxaa saxal ah oo aad ka gaartay runtii dagaalka iyo qulqulatooyinkii ama dhibaatadii dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay umadii Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed ku gaareen oo gaarta ka soo gaartayna waa wada tacsiyeynaa inta ku dhawaatay Allah u naxariisto inta ku dhaawacantana Allah caafiyo waxaan waxay ahayd masibaro taas ay ahayd halkii iyo dadaalkii aan wadnayna mar walba waxay ahayd waajib nasaaranay ahayd ugu dambeynna waxaan isleenahay hadda dhibaatadii sababtii keentay dhibka xalkeeda in la aado ayaa xalka qaybka ah oo xalka ugu saxsan ah waana midda aan qabno cadaynay oo statementkiina ku cadaynay in looga baxo ismariwaaga siyaasadeed ee dalka jira doorashadii lagu heshiiyey in la galo aan sheegnay weeye wixii kale oo hadda doorasho aan waafaqsanayn ama doorasho aan la ahayn oo dhibco kale oo dad ma jiri karana weli diyaar baan u nahay inaan gacan ka geysano rajiga qabta anna waxaan rajeynaynaa laakiin in dhibku halka ku istaago wixii dhacayna sidaas ay nasiib darro ahaayeen lagu wada qanacsan yahay wadada Soomaalina isaga looga samata bixiyo caqabada soo wajahday oo ku timid arrimihii doorashooyinka iyo dibadhaca iyo muranka iyo taas aan shaqo fiican ka qabnaa ku dhamaatay maanta
gelinkii dambe dawladdu ciidamay ka soo qaaday galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareed oo qaarkood ay aagaga ama furmaha hore ay ku jireen sida uu sheegay wasiirka amniga oo goordhow aan la hadalnay sidee u aragtaa ciidamadaasi mase lagugu wargeliyey in laga soo qaadayay dhuusamareed ciidamada wax kasta oo la tallaab kastoo la qaaday oo la socotay shaqaaqooyinkii ama dhibaatadii ka dhaxaysay magaalada muqdisho waxaan rabnaa inay halkaa ku istaagto marna anagu dadka eedaha iyo waxyaabaha wax isku dhibaatada sii sheegisteeda iyo ma ihi marka waxaan rabnaa dhib oo dhan inuu istaago laga istaago laga joogsado wadada saxda ah iyo maslaxada Soomaaliyeed iyo danta ummadana la aado meesha ku jirto dhammaan waxay gacanta lagu hayay ama laga fakarayay oo aan dan ahayn laga waantoobo madaxweynaha waxaa la filayaa daqiiqada kadib xilligan inuu hadlo wararka qaar waxay leeyihiin waxaa dhici karta madaxweynuhu inuu go-aankaasi ayido ma isku raacsaneedeen oo heshiisma ku ahaydeen in madaxweynuhu uu go-aankiina idinku soo raaco ka hor inta aadan soo saarin qoraalka madaxweynaha waa madaxweynihii aragtidiisuu leeyahay mas-uuliyadiisuu leeyahay waana dee wuxuu dhihi doono iyo wuxuu ka hadli doono ayaga ma ahan de waa hawl aanan ogahay maahan inaan da ogaadana wax oo loo baahan yahay ma ahan marka annaga mawqifkii aan qabnay aragtidii siday wax nala ahaayeen baan sheegnay madaxweynaha tiisa u dhihi doonaa insha allah waa mahadsantahay madaxweyne